بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي حبيباتي ميلولي بأدونك شوكتان سلام آذو قيمة بدن وآذو شرف بدن هودي إني سو مرينايا بعد سلام كسودو هذا الشنركي نمرو ستار كوكن إن عافمات قبطان الرحمن كإني جرجينايا إلهي سبحانه وتعالى عافمات كينا محي هذه إني سياديو inta xanuunsan ilaahay caafiyadan bidaafna uga dhigo inta dhimatayna raxmaanka ugu naxariisto familiadoodana samari iimaan Allah ka siiyo bil ramadaan waaye maxay heeday ka faa'iideysan ducadan aabadino ilaahay dhibaatadan oo wareegaysa cudurkan oo socdo oo imtixaanka ah in maxay heeday ilaahay uu inaga dulqaado inta uu haayana maxay heeday ilaahay uga dhigo dambi dhaaf inta ku dhimatana ilaahay u naxariisto marka soo dhawaada aad ay soo dhaweynaya xabiibaati maanta waxa rabaa in la wadaago cabitaana sameeysanaya aniga hadda waxa rabaa insha Allah ina ku suxuurto fridge-kan gashanaya hadda wali maghrib hatta lama gaari laakiin maghrib loo yara dhow yahay marka suxuura ka dhiganaya badana aan ma jeceli suxuurta ina qamadi cuno qamadiga waan jecelahay oo caanaha lagu cunayo dhanaanka ah dad badan soo codsadeen wiilba u badnaadaan soo gelinaya raaliga ahaada qaabka loo karina wax iska fudud waayo qof waliba uu fahmi karaa laakiin wiilasha badan waxyaaba qaar waa in la tusaa fa insha Allah waa inii soo gelinaa door raxmaanka maxay ahaydee isaamaxo marka ma jecli waxyaabaha oo culculus ina cuno yani waxa waaye hilib la iska ilaalinaya marka cabitaan waxa rabaa ma sha Allah aad uga faa'iideysaan oo aad u nafaqo badan subhanallah yani wax laga sheekeyn karaa xaqiiqatan ma ahan madaxdeena waxa ah kan maxaa la dhahaa kan wheatgrass ina taqaanaan arojeenaya kana ani asoo fresh ah hela ma sha Allah mar waxa ka soo iibsatay waxa ka soo iibsaday suuqan oo maxay ahaydee oo khudaarta lagu iibiyo oo Angara gabdhaha waxa ka hadlaya oo reer Nairobi isla way wali soo weydiina Soomaa suuqaas maxay ahaydee aniga ka soo iibsaday Angara suuqa khudaarta Angara weynka hadii maxaa la dhahaayay kaleeto waxa ka heli kartaa ii sheeg City Park no way taala meel kale ma ku garanayo kan fresh kan ka hadlaya caleenta markay fresh ka tahay markay powder ka tahayna waa kana wheatgrass aan u yaala meel waliba ka helaysaa supermarketyada lagu gadaa isli xataa degantahay galmad supermarket maraan tagay wuu yaalay reer isli inay maqlaysaan rajaynaya xabiibaati galmad hadaa tagtaan waa ka helaysaan asxaabta kale ee noo dulqaata waxa waa liigu xiran yahay wixii hadhow gabdhii way ku wareerayaan kana marka suuqaas u yaala lacag ma joogo wax badan iska soo iibsadaa xoogaa cagaar tiq ma ahan xamaleynaysaa inuu xoogaa soo yara cagaarku u ka baayo way wax badan soo gataa waa isticmaala baalkan aad u faa'iido badan yahay faa'iidadiisa ani hadda ma rabina intuu uga hadlo marba maxay ahayd Ilaahay nafta iisa muxuu kaga soo hadlaya kaligiis bacda Ramadaan faa'iidadu uu inoo leeyahay anoo kala qaaqaaday oo kala dhigdhigayo yani wax laga sheekeyn karaa maaha marwa hormooniska ay qaldan marwa waxa rabaa inaa isnafaqeeyo marwa waxa rabaa jir qurux badan inaa yeesho waxa soo dhan ma sha Allah inaga caawinaa fitamiino badan oo haysta macaadin badan oo haysta marka ka faa'iideysano teeda kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala wallahi anaga maxay ahaydee waxaan nahay caasiyaal oo Ilaahay ku caasi Ilaahay wuxuu ina siiyay يعني جذا بدن وفوائد بدن جركين سبحان الله أقوله يعني وحين ولقى شيء كين كرينين مركب كوي كفائدة استو رادي إلهي هاي نقدر علمي أنا ولا برتا وأنا الرادية دكتورك مركب أوتكتان قبل قاري يعني مركب قارة وحارك ضد كوسو قراية وحان عشابته وحان ضد كيدلان إنه waxyaabaha qaar oo dhakhtarka uu ku soo qoray dhakhtarka aad garanin ama uu muslim ka ahayn ama gaalka ah ama muslim baha ahaade kaniiniga caadiga aad garanin wax laga sameeyay waa cunta way ku diidaysaa marka gabdhaha walaalaha oo muslimaadka ah ama wiilasha walaalaha oo muslimaadka ah waxyaabaha faa'iidada leh ay kula jeclaadaan in aad ka faa'iideysato oo reerkaagana aad ku dhakhdo muhiim jiddan waa yani marka xabaturashaadka aad ka soo hadlaya dad badan isoo qoreen bahashaas yani faa'iidadeeda ana laga sheekeyn karo oo ani xataa marka ka dambeeyay wallahi waxa iiga soo laabanay marka ka dambeeysta ana si baranay yani waxyaabaha iiga soo laabanayo fiidiyoyalan idinka soo wada idinka dhan xataa waa tacjibaysan xaqiiqatan waa soomanahay beer ma sheegay marka bahashaana haystaa wheatgrass-ka hadaada kan heli kareenin oo caleenta ah powder-ka isticmaali kartaa laakiin mar waliba hadaaba wixii fresh ah heli kartid fresh-ka fiican waxa ku iri daal madreemis maanta hada gurigaas ka shaqeynaysid ani hadda bahalkan intaan wado kamar waa ahaan sanad waa isticmaalaa ku dhawaad xaqiiqatan يعني waxa ka sheekeyn karaa ma aha wallahi jirkaaga isbedel weyn ku dhacayo hormooniska waa ku saxmayaan
adidan active aan noqonaysaa xataa farxadda waxaa noqonaysaa qof faraxsan oo happy ah ka waran maasha Allah tabaarak raxmaan farxadda wax weyn waa qof iska xanaaqsan wuxuu ku xanaaqsan yahay aan la garaneyn waayadan aad u soo bateen dad xanaaqsan wixii ku xanaaqsan yihiin xataa aanan garaneyn qofka dub wuxuu ku xanaaqsan yahay uu garanayo maskiinka kaas waa loo garaabaya laakiin qof iska xanaaqsan ka war wuxuu ku xanaaqsan yahay aanan garaneynin waxyaabaasna badanaa waxaa waaye hormoneska gabdhaha oo ka qalqaldamaayo marmarka qaar maxaa la dhahaa waxyaabo kaleeto mashaakilaad badan oo maxaa la dhahaa caa'ilaadka ahna way keenaysaa ilaahay inta gabar oo dhibaato haysato gabdhaha aad uga damqadaa maadaama barnaamijyada aan ku dhex jiro waa ila soo xiriiraan garabkiina taaganaa madaxa ay saarantihiin wallaahi madaxa ay saarantihiin ilaahay inta gabar oo dhiban ama xanuunsan ama wax ka tabanaysa raxmaanka ka dulqaado ha isjeclaano maxay ahayd isku naxariisana si ilaahay subxaanahu wa ta'aala annagana inoo jeclaado oo annagana inoogu naxariisto fa isku soo duceynana marka bahalkan subxaanallah faa'iidooyin badan oo heesta waa ka soo hadli doonaa video gooni aad ilaahay yiraahdo vitamin C oo heesta vitamin C waa taqaanaan jirkeenu wuxuu yahay vitamin A oo heesta vitamin E oo heesta alxamdulillah ilaa adeem had ku sugnaatay vitamin K oo heesta vitamin B6 xataa oo heesta selenium oo heesta magnesium oo heesta yani waxa ka sheekeyn karaa ma aha insha Allah mara maxay ahaydee فيديو إني قصة سمينا يا سهر وشاقي أنا كشاكينا يعني فائدات كيسو دان سيدتك محي هذه وقبح صدان قفولي بماش وكجبها هي سو وقبها ترمو يقبلها هرمونس كمرولي بك خلط معي أدو إني عاونا يا sidoo kale hada wajigaaga anigu waxaan ka arkay waxay tahay wajiga ma taqaana hada wajigaaga shucaac haysata ama wajiga qorraxda ay ka dishay ama wajiga maxaa la dhahaa madmadoobaad uu kaaga jiro wajigaaga dhan nadiif u noqonaya taas to ani aan arka waa xaqiiqatan wajigaaga nadiif u noqonaya wajigaaga wuxuu noqonaa uu cadaanaya uu iftiimaya yani midabkaaga uu nuuraya dadka wajigooda xataa aana buuxin oo godka haysta ma aragteen dad wajigooda isku dhaxdhacsan yahay waxa u malaysaa wajigaaga inuu soo buuxinayo يعني waxaan arkaa waa xaqiiqatan wajigaagu soo buuxinaya ma sha Allah tabaaraka raxmaan sidoo kale maxaa la dhahaa ii sheegay ina sheega u maleynaya active aan noqonaysaa yani qof firfircoon aan noqonaysaa midabku waa ku iftiiminaya wallahi wax laga sheekeyn karaa ma ilaahay wuxuu ina siiyay يعني geedo subhanallah hadii laga sheekay sometimes ay isku ooynaysa hatta faa'iidada ku jirta anaga raadineenin waa carareena leh marka hada hooyooyinka caruur ay inagu xiriirto ay dareemi karaa maanta caruurta hadaba cararaysan waa daaleysaan waxyaabahan badsada exercise kana muhiim waa mar waliba waa in dhaha exercise iyo dabaal hada dabaal helaysa meel bareefad ah dabaalo maxaa ku diiday ina jirkaaga ka shaqeyso exercise kana gym ina tagtid qasab ma aha hada waqti u haynin gurigaaga adigoo jooga exercise sameyn kartaa aad jimicsi sameyn kartaa jirkeena u baahan jirka haduu exercise uu sameeyeen uu san dhaqdhaqaaqeenin ma lagu baahna waa muruqaha waxyaabo badan waa seexanayaan ma garateen ilma galeenkiina xataa muhiim jiddan uu gabdho u yahay exercise-ka active uu noqonaya faakuwi maxaa la dhahaa caafimaadkooda oo gacantooda ku qaat ilaahay inaga dhigo ilaahay waa waxyaabo badan uu insiiyay ka faa'iideysano markuu powder-ka yahayna waa kana sidaan u yaalaa marka saasoo shiidan laakiin hadaa kan fresh-ka ah helaysid ahsan fresh-ka kasi fiican marka ani hadda waxaan rabaa inaan isku darsado waxa jeceshaa ku darsan kartaa maanta ma isticmaalaya kan oo powder-ka ah waxa isticmaalaya maxaa la dhahaa kan oo fresh-ka ah kan kii powder-ka waaye kana waa kii fresh-ka ah sidoo maxaa la dhahaa u soo baxay ay tahay caleenti intaana isticmaalaya ujeedaan waxa ku darsanaya xabad oo muus ah inta waxa igu jirto 1 2 3 4 5 shan xabo oo waxa igu jirto oo timir ah intana waxa ku haystaa caanaha waxa isticmaalaya oo low fat-ka ah badana waxa ku jeclaa inaan ku darsado almonka caanihiisa ma ii oolin fa marka caanahan oo low fat-ka iska isticmaalaya timirta lafta ka baxsanaya yani marka ma sha Allah tabaaraka raxmaan ilaahay maxay ahaydee kuwa mar waliba ku xamdi ilaahay ha inaga dhigo waxaan hadaa barataan oo waxyaabahan aad samaysataan shaahida maxaa la dhahaa cashaabta aad samaysataan ma dhacayso gabar oo dhiig ka qaldamo ma dhacayso yani qof xanuunsan dadkeena dhan way wada xanuunsiin hadaa aragteen ma aqaano ani waxaan ku dhex jiraa mar waliba waa isoo maraan marka dadkeena aad ay wallahi u xanuunsiin waxaasna waxa waay cuntooyinkeena isku dheelitirneen cuntooyinkan wada gasacadeysan oo daasadaha ku jira aan cuneyno oo wada kiimikada wada warshada miiran ah sonkortaan oo aad ka maxay ahayd anaga Soomaalinahay aan u jecelnahay ya sonkortaan oo aad ka u jecelnahay dhibaato ya ka waran dad maxaa la dhahaa oo badan oo isbitaalka shaqeynaya waxa ka hadlaya wadamadan oo Yurub odagayga iga sheekay qeyr Allah siiye يعني odayga ani asas ku mid ah reer sokor manihin asaga dhakhtar waaye marka fa
isbitaal wuxuu dhahay ka shaqeynaya sonkorata isbitaalka sonkorta kiilada wuxuu dhahay almost ma aqaan hal sano iyo barmiya mise 2 sano kiilada sonkorta ama meesha taal uu dhahay yani kiilo sonkor oo intaas oo qof isbitaalku ka shaqeynaya dadka qaar ma ku darsanayaan dadka kale wax yaniis ku darsanayaan anagana Soomaali kiilo malaa 2 maalin looga baxaa ama 5 cisha looga baxaa dadka qaar waxa arkaysaa ku dhahayo markay adeeganayaan aba arkaysaa 50 kiilo sonkor qaadanayo bisinka marka sonkorta hal iska yaray waxa oo maxay ahayd oo xaamihiin inaga dilo waa sonkorta waxa maxay ahayd dhibaatooyin badan ibn galeenkiina nooga soo sheegay waxay tahay sonkorta iska yaray exercise-kana muhiim jiddan waaye warka in ay idinku badiyaan uma leenaya sababta u badiyana wax kale ma idinku bayni faa'iideynaa soo ma ay garaali ahaada xabaayibi hadda waxa sameysanaynaa marka alaabteena isku shiidano marka waxa soo qaata khalaadada waxa ku shiidan lahaa caanihi ku daray caanaha wadii taqriiban 2 koob isticmaalaya caanihi iyo waxaan ku daray timirtii iyo ii sheeg maxay ahayd wheat grasski marka sokor ha isaga darin wax waliba aad rabto ina faa'iidadiisa aad ka heshid sokor ha ku darin haddana bahalkan subxaanallah waxaan kala yaabay waxyaabaha waxa waaye oo faa'iidadooda dhaqsa arkaysa bil gudaheeda waxa ku dhahay hadda isticmaasho oo maxaa la dhahaa maalin kasto bil gudaheeda faa'iidada waa arkaysa adi dhan si kala noqonaysa ma sha Allah tabaaraka rahmaan lacag ma joogo raqiis waaye cuntooyinka wuxuu ku jiraa maxaa la dhahaa waxyaabaha khatarta ah yani ana laga hadli kareenin asaga iyo muringaha iyo waa aragteen ya muringa insha Allah waa inii keena asagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaho marka waxa sameeynaa waa isku soo shiidaya marka isku soo shiida abaxa maxay ahayd isku soo laabaneena hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala nafta idaayo حبيباتي واسكو سو لابناي alaabteeni waa kana ma sha Allah tabaarak rahmaan ilaahu noo barakay ma sha Allah inta haysanasi saanib soo baxday u jeedaan yani wax laga sheekeyn karaa ma xaqiiqatan ka faa'iideysta hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maxay hayday nafta idaayo بعد رمضان وكسو هادلايا ويت grasska iyo faa'iidadiisa oo dhan insha Allah khair baraka iyo farxad إلهي سبحانه وتعالى إني جرجينايا إلهي محيي ها إني كرامي إلهي ها إني حفظيه قفلي بمشي وكدبينها إلهي كباه ترى خير بركة إن شاء الله هذا نقول سبته وكسود ويننا إن شاء الله وجزاكم الله جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله أحباب قلبي.